hubaashi haddii aad sidaan u isticmaasho ama aad sidaan u dubato canjeeladaada ama quraacdaada maalinlaha wax weyn ayaa iska beddelaya noloshaada, nolosha qoyskaaga iyo tan carruurtaadaba haddii ilaahay idmo. canjeerada ama rootiga ama sabaayadda ama jabaatiga aad dubanayso haddii aad u isticmaasho qaabkan oo taladan aad qaadato canjeerada markii wax badan ayaa iska beddeli doona qaabkii aad quraacdaada hore ugu samaysan jirtay. sababtoo ah quraacdii hore aad samaysan jirtay iyo quraacdan ayagoo wada isku mid ah oo canjeero wada ah ama rooti wada ah ama sabaayad ama jabaati wada ah haddana farqi weyn baa u dhexeeya oo way kala duwan yihiin. sida ay iyagu u kala duwan yihiin ayay noloshaadii hore iyo noloshaada dambana u kala duwanaan doontaa. waana rajaynayaa in aad ka heli doontaan talooyinkana aad raaci doontaan kuna baraari doontaan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa idin salaama khayaarta sharafta meel kastoo dunida dacaladeeda iyo daafaheeda aad ka joogtaan. ugu horreyntii ugula saliya xabiibkeena maxamed sala allahu calayhi wasalam cimri dheer iyo cibaado suuban iyo caafimaad qab baan idin rajaynayaa nabad ku waara. halkan saaka waxaan ku haysanaa waa quraacdeena saaka waxay ka kooban tahay ashyaa badan ama shayo badan. waxaan hadda aan idin tusayo oon gacanta ku haya waa sarreen shiidan, waa mushaari ama boorash sarreenka shiidan ah. waa sarreen shiidan oo sidii jariirtii camal ah oo markii aad kariso wuxuu noqonayaa wax yar oo soor camal sideed buu u adagya sida mushaarida caadiga iskuma jiido. middan labaadan hadda idiin hayo oon gacanta ku hayana waa boorashkeeni caadiga oo gasacadaha ku jiray oo qamadigii oo dhambalan ama balbalaaran oo xoogaa aan maaragtay shiidnayn ah. labadooduba waa qamadi oo qamadi bay ka samaysan yihiin laakiin qaabkooda ayaa kala duwan oo midna waa shiidan yahay midna ma shiidna oo waa boorashkii caadiga ah. boorashkan ama mushaaridan meel walba ayay taalaa dal iyo dibadba. waa tii gasacadaha ku jirtay iyo iyadiyo jariir ah. insha allahu tacaala marka waan isticmaalaynaa quraacdeena saaka ayaan u isticmaalaynaa hadduu ilaahay idmo. saad ujeedaanna mishintan wax lagu shiida ayaan ku shubanayaa 2 koob oo midna uu yahay midda jariirta midka kalena uu yahay midda dhambalka ah ama tii gasacadaha ku jirtay oo kale uu yahay ayaan ku isticmaalayaa insha allah oon halkan ku shubanayaa. run ahaantii markii aad quraacdaada ama qadadaada ama cashadaada wax kastood bur ka samaynayso aad u isticmaasho waad mahadin doontaa hadduu ilaahay idmo. hadda koobkii labaad ayaan ku shubanayaa sida aad ujeedaanba kabacdina insha allahu tacaala waan shiidaynaa. markii aan shiidno waxaan u budaynaynaa sida burka oo kalean ka dhigaynaa. looma baahno in ay taagtaagnaato labadooda mid awal bay shiidnayd laakiin tan markii lagu daro buday isla noqonayaan ama bowdhar bay isla noqonayaan si ay burka iyo ayagu isku qabsadaan aysan u noqon wax taagtaag leh ama ay iyadiyo nool kasoo baxbaxdo. marka insha allahu tacaalaa asxaabay sidaasaan budo iyo waxaan uga dhigaynaa bur lasii shiiday camal bay noqonaysaa. waxaa kaloo samayn kartaa haddii aadan haysan mishintan ee tan gacanta aad haysatid oo wax lagu shiido ayada lafteeda waad ku shiidi kartaa intaad biyo ku darto. hadda burkeeni ama mushaarideenii budadaas ayay noo noqotay sidaasay bowdhar u noqotay. ayada iyo burka kale ma garanaysid waa sidii burkii oo kale. markaas aad bay budo u tahay run ahaantii wax yar xataa kama dareemaysid oo buurbuur ah ama jariira inay ku jiraan. baaquligan ku shubanayna markaan baaquliga ku shubanno insha allah si aan ugu darno burkii aan u diyaarinay. burka iyo mushaarida ama shurbada aad isku darayso waxaa loo baahan yahay qiyaas inay noqoto. qiyaastuna waxay ku xiran tahay adiga familka ama cidda aad u samaynayso inta ay dhan yihiin inaad isku qiyaasataa fiican. ma ahan in aad kala badiso oo aad kiilo bura ku darto 2 qaado oo mushaari ah. hadda burkan aan ku darayo waa rubac bur ah ayadana 2 camal bay ahayd. mar walba waxaa loo baahan yahay inuu burku xoogaa badan yahay. hadday isla ekaadaan ma fiicna oo waxa weeyaan waxay kaaga badanaysa mushaarida. 2 qaado ama qaadiya half sokor ayaan ku darsada. sidoo kale waxaan ku darsanayaa waa baking powder. fixiso waad ku darsan kartaa ama qamiiriso laakiin aniga tan aan hadda isticmaalayo waa baking. labaduba waa qamiir
wayna kuu fixinayaan. Waxaan usii doortay bakinka waxa weeye in aan ogahay ama aan rabo inuu iiga dhigo sidii pancake oo kale oo canjeeradaydu aysan noqon mid jiitamaysa ay noqoto sidii keega ama doolshihii mid u kala daadanaysa. qaadada fiideeda cusbaa waan ku darsaday intaanan si fiican isugu dhex walaaqaya marka oon isku dhex gelinaya si ay si fiican isugu dhex galaan oo hadhowtadii maaragtay aanan ugu warwareerin qasitaankeeda. sidoo kale asxaabay waxaan ku darsanayaa hal xabo oo ukunta hal xabo waad ka badsan kartaa 2 iyo 3 waad ka dhigan kartaa. caruurta qaar baan ukunta caadi markay tahay cunin ama markii la kariyo ama markii la shiilo. haddii aad rabto marka ilmihii inaad ukuntii sidaas ay ku diideen aad sidaan ku siiso wixii aad u karinayso ugu badinaysa oo cuntada hadday canjeero tahay hadday rooti tahay wax kastood u samaynayso ayaad cusbada ugu badinaysaa. haddana biyaheennii oo qandaca ayaan ku shubanay. uma baahna in aad mishiinta lagu garaaco wax aad ku garaacdo umana baahna inaad gacanta geliso. xurbinkan bes ayaa ku filan. xurbinkaanaan ku xurbinaya ilaa iyo ay iska kay dhex galaan. biyahana markastoon u baahdo waan ku shubanaya ilaa sidii aan rabay iyo qiyaastii aan rabay uu ka tagayana waxaan ku walaaqaya ama aan ku xurbinaya ama aan ku qasaya. xurbinkan aad u jeedaan oo ah midka doolshaha ama wax lagu garaaco waxyaabaha la garaacayo la qasayo. uma baahna garaacitaan sidii canjeeradii caadiga ahayd inaad u garaacdo umana baahna in aad gacan la gasho ama aad mishiin ku garaacdo. kaliya intaasaa ku filan sababtoo ah burka marka uu kaligiis yahay uu isqabsanayo wuxuu u baahan yahay in la kala fujiyo la garaaco ama mishiin lagu garaaco ama gacan lagu qaso si uusan isugu dhegdhegin. laakiin markii sidaan aad ugu darsato mushaaridan ama boodarkan uma baahna garaacitaan iskumana dhagayo ismana qabsanayo. si toos ah ayaa markaad qaado ama xurbinkan ku walaaqdo ood ku qasto si toos ayuu wuxuu u noqonayaa sidii aad adigu ka rabtay. biyaha ayaan kusii kordhisanayaa weli waxaan dareemayaa in qiyaastii aan ka rabay uusan ahayn. mar walba waa inaad qiyaasta biyaha la socoto oodan biyaha ka badin. haddii aad biyo ka dhigto hadhow markaad ku dubayso waad ku dhibaatoonaysaa wayna kaa gogo'aysaa canjeeladu. hadday adag tahayna sidoo kale ma fiicna. laakiin mar walba waa inaad qiyaastaada la socoto. hadda waxaan maraynaa gabagabadii iyo guntii qasitaankii canjeeladeennii waana diyaar. sidaas ayay diyaar ku tahay sidii aan rabay bayna ii maraysaa. markaa saxaabteeda sharafta leh mar walbana waa in aad qiyaasatood fiiriso in uu kaa adag yahay ama uu kuu jilicsan yahay. waa kaasa maasha allah quruxdaas ku soo baxay smooth wax burbuura ma lahan isaga dhan uu isku tiran yahay. waxa weeye waa wada liisho. haddana birta ayaan dabka saartay wuuna soo kacay oo wuu noo kacsan yahay ama wuu noo faxsan yahay. walaalahayga qaaliga hadda birtii baan dabka soo saartay insha allahu tacaala. waxaanan aadaynaa in aan dubno canjeeradeennii si aan saakayto caruurta iyo reerka oo dhan u siino quraac aad u wanaagsan oo ka fiican quraacihii hore oo awal burkii caddaa oo la siin jiray. waan rajaynayaa adiguna inaad insha allahu tacaala saaka wixii ka bilowda aad ka bedeli doonto canjeeradii caddayd calool istaagii. mindhiciradu ma shiidi karaan run ahaantii dhib bay ku qabaan burku markuu cad yahay. cabadii noo u horreysay baan hadda dabka saartay. qaadadana waad ku duban kartaa haddii aad haysato furka canjeerada lagu dubana waad ku duban kartaa. waa isku mid kastoo aad ku dubtid waa kii kale. run ahaantii canjeeradan kor iyo hoosba way ka guduudanaysaa doolshay noqonaysaa. araggeeduna waa uu qurux badan yahay oo ma fool xumo oo ma ahan yacni qamadi keliya oo madow ma ahan. mar walbana waxaa fiican qamadiga aad isticmaalayso inuu noqdo midka madow. kafeegayga iska soo qaatay oon meesha isaga dul cabayaa kursigayga ii yaala. alxamdulillaah halkaasaan canjeeladeena dubanayna asxaabay. labada birood ayagaan isku daboolayaa. birtu dabool ma lahan marka maadaama ayna dabool lahayn si ay dhaqso iigu guduudato canjeeradayda tan kalaan ku daboolayaa. ayadaana maaragtay labadooda qafiifsan midda kale dhaqso iima guduudinaysa canjeelada waqti bay qaadanaysaa. tan laakiin waa qafiif ayadaa durba ii guduudinaysa. insha allahu tacaala marka canjeeladeena sidaanaan kusoo dhammaynaynaa haddii alla idmo
saasay waa ujeedaan doolshe qurux bay kusoo baxday run ahaantii isma dhahaysid qamadi iyo waxaasaa ku jira aad bay u qurux badan tahay maasha allah haddana saxaabay waxaan u samaysanayaa digirtii aan ku cuni lahaa digirtan waa digirta gasacadaha ku jirta oo diyaarsan digsigaas ayaan ku saartay basal iyo xawaash iyo waxbaan isku darsaday adiga iska carfis digirtii digsi ku jirtay gasacana wataan halkaasaan ku shubtay 2 jeer bay soo kartay uma baahna karis way diyaarsantahay hadda quraacdeeni sidaanay diyaar ku tahay maasha allah ilaahay ha noo calfo walaalaheena aan haysana ilaahay ha siiyo inta haysatana ilaahay ha u siyaadiyo canjeeradeeni iyo maraqeeni ama digirteeni waa kanaadana waan tasti garanaynaa sida caadada noo ahayd ama waan dhadhaminaynaa yummy runtii inaba caadi ma ahan waa wax cajiib ah videoga like saar saaxiibada la sii wadaag waa rajaynayaa sidan uga helay inaad adiguna uga heli doonto saaka wixii ka bilowdana aad wax badan ka bedeli doonto quraacda maalinlaha oo